madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi oo safar shaqo maalintii labaad ku joogay magaalada Xeebta Berbera ayaa saaka aroortii xadhiga ka jiray shidad tiro badan kuwaas oo ay hirgelisay dowladda hoose ee degmada Berbera sidoo kale waxa uu madaxweynuhu xadhiga ka jiray bangiga dhexe oo muddooyinkii u dambeeyay uu dhisme ka socday haatanna u dhamaaday ayaa markaa ka ahaa maamule shaqaaluhu waa 25 arrinka howlgalaa inkastoo dad waaweyn ay u badan yihiin oo bariga qaarkood lala furay mudan madaxweyne waxaan ugu talagalay dib u casriyeyntan ka sokow dayactir la'aanta inaanu isu diyaar garayno oo aanu u sii meel dhiganno kobaca dhaqaale iyo dhaqdhaqaaqa ganacsiga ee ku soo kordhay doon Soomaaliland marka dekedan insha Allah la furo ayaanu ugu talagalay inaanu isu diyaar garayno saad aragto uu ka qurux badan yahay baanan badan oo caalamka ku yaala Hargeysa caasimadda sidoo kale aanu ka dhignay wareer noomaad iman insha Allah wadna doontaa laas caanoodna waanu sidan oo kale ayaanu ka dhignay waxaan ku tala jiraa laamaha baan ku leey gobolada oo dhan inaanu qorxino oo ay magaalooyinka ku yeelaan ka dhex muuqdaan aad iyo aad baan idin salaameynaa anagoo ka wakiila shaqaalaha aad iyo aad baan ugu mahadnaqaynaa hay'adaheena dhaqaalaha baanka wasaaradda hanti dhowraha xisaabiyaha guud waxa muuqata dadaalkii ay sugeyseen iyo shirarkii joogtada wadeen iyo laanta ganacsiga marka lagu daro wasaaradda ganacsiga waxa muuqata inaad dejiseen sanadkan dhaqaalihii sarrifkii doolarku inuu hoos u dhaca mooyee inaanu kor u kicin taa ummaduna way idin og tahay annana waa idinku hambalyaynaa marka la sugayay hay'adaha dhaqaalaha oo dhan baanka Soomaaliland hawl badan baa u taala dalkan dhaqaalihiisa dhan baa la rabaa inuu dib u qorsheeyo oo waxyaalaha inooga baahan waxaan doonayaa inuu adduunku halkan xidhiidh LC aanu ka furo oo baanka adduunyada ku kasbano aaminaad shaqo waxaan la leeyahay ictiraafku waa qofku markuu adigu aamino ma aha waraaqad dawladeed maanta waa arkaynaa ummadda inoo timid ee maal gelinaysa ee dal ahaan inagu aaminsan sidoo kale aanu rabnaa financial instituteska caalamkuna inay baankeenna si xaqiiqo waaqici u aaminaan markaynu howlahan qabano wadadina waanu haynaa aad iyo aadna waa idinku mahadnaqaynaa hawl badan iyo xil badan ayaa idin yaalla hay'adaha dhaqaalaha ma aha dalka inooga taalla baahideenna caalamka sidii aynu xidhiidhkooda u furi lahayn waxay ku xidhan tahay shaqada wanaaggeenu qabanno nadaafadda shaqo iyadoo laga ilaaliyo wax madmadow dhaqaalaheenna meel kastuu marayaba dhaqaalaha madow caalamku ka baqaayo ee la yidhaha waa lacag la wareejinayo iyo dadka shaqeeyo lacag xoolaha hayaan aamin ku ah kuwoodii kuwa dadkaba ayaa mudnaanta koobaada hawl badan baa Berbera ku soo fool leh 5 sano ka bacdi ay noqon doonto waa la malay karaa level lab intan ka badan oo ajnabiya hanti ka badan waxay u baahan tahay markaa inaan hawl badan u diyaar garowno baanka la casriyeeyo shaqada la casriyeeyo qalabka la casriyeeyo aqoonta la casriyeeyo talabada qaadana aad iyo aad baan ku bogaadinaynaa waana mahadsantahay wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh isla markaana duqa degmada Berbera Cabdishakuur Maxamuud Xasan Ciidi ayaa ka warbixiyay waxqabadka 3 bilood ee u dambeeyay ay hirgelisay dowladda hoose ee degmada Berberi magaalada Xeebta Berbera soo marnay waa qorshihii degmada ugu jiray waxaan ku ururinayaa waxaan qorshe lahayn ku guulaystaan walaadayaanka degmada Berbera wuu fadhiistaa wuu qorsheeyaa dowladna waanu fulinaa annagu sidaa arkayso waa sanadka intiisii badneedna way harsan tahay intana waa hordhici weyn waxaan kuu sheegaynaa madaxweyne inaad dolaska miisaaniyadda iyadu inaanu dowlado shisheeye ku tiirsanin inay tahay cashuurtii aan dadweynaha shacabka ka ururnay cashuurtii aan dadka ka ururnay ayuun baanu dib wax ugu qabanay oo ugu sheegay waxaana ku dadaalaynaa oo qorshahaydu yahay inaynu cid walba ka maarno ilaahay subxaanahu madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi ayaa isagu waxa uu ku amaanay golaha deegaanka ee degmada Berbera waxqabadka tirada badan ee muddooyinka aynu soo dhaafnay ay ka hirgeliyeen gudaha magaalada Berbera geesta kale waxa uu madaxweynuhu iridaha u furay garoonka Cabdalle Stadium oo la dhigay roog casriya waxaa la xisaabtan inuu wixii ay dhintay waxa sanad ku qabtay waxa uu keenay daafuraan oo yiraahdo wixii ay dhintay waa ka meel walba wixii loo qorsheeyay baa la helay runtii dad badan waxay qabaan inay dowladda hoose ee Berbera taageero dhaqaale oo dheeraad ay hesho oo ay degmada ka hesho oo dowladda dhexe ka hesho waxaa sheegayaa inaanay wax dheeraad ah oo dowladda dhexe ay Berbera ka heshaa aanay jirin waxa inoo xeera
oo gobollo lagu dhaqmaa gobol walba kastabka ku yaalla wixii uu helo in gobolka loo gooyo qayb ka mida boqolkiiba 10 dowladda dhexe u qaada magaalo waliba waxay leedahay khayraad mid ka sambeeyay qaad soo maro gabiray mid waxay leedahay sayrada ariga waa burco oo dhaqaalaha u badan ee dalku ka soo baxo xoolaha laga iibiyo shulseeda leh waxaa laascaarood kastabka dalka laga soo galaabay soo leedahay magaalooyinka waxay leeyihiin qaarkood dad badan ama hanti badan laga soo saaro mid beeyada soo saarta mid beera soo saarta waxay u baahan tahay maamulka iyo dadka oo isfahma gabagabadina waxa uu madaxweynuhu socodluga ku soo maray jidadka waaweyn ee magaalada Berbera waxaanu kala kulmay bulshooyinka ku dhaqan magaalada xeebta Berbera soo dhaweyn diiran waa Cabdirashiid Mubaarak Cabdi Cabdirashiid Suul Goobjoog TV Berbera